الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا علما ينفعنا ولا تجعل ما علمتنا وبالا علينا. ودرسي بقول فرتني الكوبات تفسير القرآن، وحين قبل من آيات أفرتني سديد سورة الأنبياء. الله يقول: ولا والله قد آتينا ونسيني موسى نبي الله موسى وهارون يا هارون الفرقان متكي حقي باطل كالساري، والضياء يفتين يا مسيني، وذكرا أي تذكيرا وانا، وللمتقين كو إلهي كعبسنا يا أسنات الذين متقين تاسو يخشون كعبسنا يا ربهم ربكود بالغيب مغناشيو حال ربكود أسوك سويه، أما بالغيب في الغيب مغناشيو يجو أيدتك كمقيهين حال كسويهين، وهم يجو مشفقون وكو عبسنا من الساعة ساعدنا وكوروري وكعبسنا. وهذا قرآن ذكر وذكري، ذكر قاسو مبارك نبركي، ذكر قاسو أنزلناه أنسود جني. أفأنتم إذنك أيا منكرون إنكريا له ذكر مركا ما يذكر إنكريا مركا ديديا. هل كان الله وحين صهر مرتمرك وهرين إنه إلهي إن بدن واسكو حكسي أنبا واسكو لماني نبي موسى نبي محمد عليه الصلاة والسلام لبدا مركا إن لشاغ لبدا كتاب أو فرقان iyo tawraad ah iyagana la isku lamaanayo oo marka mid la sheego midkii kale marka la sheego. marka suuradu ilaa inta ay ka dhamaanayso ambiyadii baa laga sheekeyn doonaa. nabi muuse nabi haaruun buu ilaahay ugu horeysiyay, allah uu ku xigsiin doonaa nabi ibraahim, waxa ku sii xigi doonaa nabiyullaahi luut, waxa ku xigi doonaa nabi nuux, waxa ku sii xigi doonaa nabi daawud iyo nabi sulaymaan, nabi ayuub ayaa markaa lagu soo gabagabeyn doonaa. kadibna maryam ayuu ilaahay sheegay tabaaraka wa tacaala. laakiin mar walba غالبا waxa isku xidhan marka nabi maxamed laga sheekeeyo ayaa nabi muuse lagu xisiinaya calayhi salaam. ambiyada marka la sheegayana sida ay u kala horeeyeen marka ma aha waxa weeye waa si غير murattaba marka loo tilmaamaya. allah marka wuxuu yiri waxaan siinay nabi muuse iyo nabi haaruun oo walaala ahaa al-furqaana wa kitaabka tawraad oo xaq kala saaray, xaq iyo baadilku kala saaray, xalaal iyo xaraam buu kala saaray, wadiyaan iftiin marka walasi. allah wuxuu yiri dhikran iyo waan lilmuttaqiin kuwa marka muttaqiinta la waaninayo. muttaqiintu marka waa kuwe wa alladheena yakhshawna rabbahum bil ghayb, waa kuwa rabbigood ka cabsada, rabbigooda marka qaybka ka sugan. amba iyagu marka ay cabsanayaan waxay ku sugan yihiin qayb oo iyagu dadkii aan ku dhex jirin ay hadana ilaahay ka cabsanayaan oo dadka marka isma tusayaan. labada macno waa lagu macneeyay. وهم من الساعة مشفقون waxay ka walwalsayeen ka cabsanayaan waa qiyaamihii iyo saacada dambe. allah wuxuu hada midkan oo quraanka dhikrun wa dhikri, dhikrigaasoo anzalnaahu aan soo dejinay, dhikrigaasoo mubaarakun la barakeeyay, dhikrigaasoo anzalnaahu aan soo dejinay. quraankiina waa dhikri mubaarak, halkee laga barakeeyay dhinac kasta oo laga barakeeyay oo quraanka khayrkiisa baa markaa farabatay. marka wax walbana isaga laga qaadanaya oo loo noqonaya, haddii aqeedadii tahay, haddii cilmigii tahay, haddii taariikhdii tahay, iyo haddii akhlaaqdii marka tahay, waa mubaarak marka quraanka. allah marka wuxuu yiri fa antum ma idinka munkiruuna inkaraya lahu quraankaas isagoo muuqasho meeshii u sirrisay ka gaaray, miyaa idinku inkiraysan marka diidaysaan? waa maya. marka waa canaan استفهام توبيخ يوم مركا لو عنانايو. ولقد آتينا ولا والله قد حقيقة آتينا ونسينا إبراهيم النبي إبراهيم
rushdahu hanuunkiisii baanu siinay min qablu ay min qabli Muusa wa Haaruun nabi Muusa iyo nabi Haaruun ka hor baa markaa la siiyey ama min qabli buluugh intii aanu qaan gaadhin ba ka hor wa kunna waxaanu ahayn bihi Ibraahim caalimiina kuwa og annahu ahlu lilhidaayati wannubuwati inuu hidaayadii hanuunka iyo nabinimada uu mudan yahay ayaanu markaa ogeyn buu Allah yiri id waqti wadkur xusid waqti qaala uu yidhi aabihi oo aazar ahaa ayaa nabi Ibraahim baa wuxuu ku yidhi wa qawmihi iyo tolkii uu ka dhashay ma haadihi midani maxay tahay tan dee tamaathiisha markaa waa taalooyin wax loo yaqaano taalaad waa jamcu timthaal allatii taalooyinkaasoo antum idinku caakifuuna aad ku dul nagtihiin aad ku dul fadhidaan yacni lahaa waxa weeye tamaathiisha markaa aad dul fadhidaan waaya qaaluu waxay yidhahdeen wajadnaa waxaanu ka soo gaarnay aabaa'ana aabbayaashayo oo caabidiina caabudaya laha tamaathiisha qaala markaasaa wuxuu ku yidhi nebi Ibraahim lawallaahi qad xaqiiqe kuntum waxaad ahaydeen antum idinka iyo wa aabaa'ukum aabbayaashiinba fii dalaalin baadi kuwa ku sugan dalaalkaasoo mubiinin cad qaaluu waxay yidhaahdeen aji'tanaa ma waxaad noola timi Ibraahiimow bilxaqi xaq miyaad noola timi am anta mise adigu min allaacibiina kuwa ciyaarayaad markaa ka mid tahay qaala markaasaa Allah wuxuu yidhi bal iska daaye inaan ciyaare iska daaye rabbukum rabbigiin rabbu samaawaati wal-ard samooyinkii allada waa midka abuuray alladii midkaasoo rabbigaasoo rabbu samaawaati wal-ard samooyinkii allada waa midkii markaa rabbiga markaa uu ahaa alladii midkaasoo fatarahunna markaa bilaabay oo cid ugu horreysay markaa aanay jirin waana aniguna min ashaahidiina kuwa markaa ka markhaati kacaya ayaan ahay calaa daalikum cibaadadiina markaas waaya Allah markaa inuu yahay mid markaa cibaadada keligii markaa mutaystay aayaadkan halkana nabi Ibraahim qisadiisii ayaa Ilaahay uu kaga hadlay marka nabi Ibraahim Allah wuxuu tilmaamay inuu siiyey rushdahu hanuun markaa inuu Ilaahay uu siiyey min qablu hadda ka hor marka hadda ka hor ama waxay noqonaysaa laba macno oo nabi Muuse iyo nabi Haaruun ka hor maadaama uu ka horreeyay ee Ilaahay hanuunkii uu siiyey ama waxa la oran karaa min qabli buluugh markii uu yaraa ayuu Ilaahay wuxuu ku ilhaamiyay xaqii iyo xujadii uu qoomkiisa kula doodi lahaa وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه مركا نبي إبراهيم waxa laga soo saaray meel loo yaqaan marka Harran waxay ku taalaa xuduudda marka Ciraaq iyo marka Suuriya waxa loo diray nabi Ibraahim qolada marka loo yaqaan marka Kancaaniyiinta tamaathiil ay marka iyagu caabudi jireen ama waxa loo yaqaan haykalka oo kale waa tamaathiishu ama haykalku waa wax la qoray dhagax oo kale la soo qaaday dhagaxiga marka la qorayaa ama shimbir baa laga sameyn ama qof baa laga sameyn ama sawir baa marka laga sameynaya marka kuwaas marka caabudi jireen oo asnaamtii nabi Nuux marka waqtigiisii marka xataa jiray oo dadkii saalixiinta ay wanaagsanaa wixii waaga shirkigii waaga la sameeyay ee quraanku marka uu sheegay ayaa marka waqtiga marka xataa la helaya oo soo gaaray oo magaalooyinkaas oo taariikhda leh oo ambiyadu ay ka soo bixi jireen ayaa marka ilaa hadda marka laga helaa oo sidoo kale waxay soo gaareen xataa waqtigii Quraysh waxyaabii la caabudi jiray asnaamtii waqtigii Quraysh marka way soo gaareen oo culimadu waxay tilmaamaan sheegaan niman loo yaqaan Ashuriyiintu hadda waxay ku nool yihiin Ciraaq ilaa hadda marka waa dad marka jira dadkaasi aalihadooda iyo hadda xataa qaarkood waxay caabudaan
iyo tamaathiisha ay haystaan magacyadii quraanku uu tilmaamay ayaa hadda lagu magacaabay la tadharun alihatakum wala tadharun waddan wala suwa'an wala yaghutha wa ya'uqa wa nasra nasri dadkii la caabudayay ee waqtigii nabi nuux noolaabu ahaa ee waagii dambe la caabuday marka haddan waxa la helayaa ashuuriyiinta oo caabudaya wax loo yaqaan marka nasriin marka nasrigi oo magacii wax yar marka la bedelay ayuu marka uu noqonayaa markaas marka nabi ibraahim halkaas marka loo soo diray oo marka halkaas marka uu ka soo baxay allah marka wuxuu kunna bihi aalimiina ku ogbaan ahayn nabi ibraahim hidaayada iyo nabinimada mid marka ehel u hoo mudan marka inuu yahay marka qof walba ilaahay waa qalbigiisa marka daalacanay qofka qalbigiisa wanaag iyo khayr iyo daacadnimo ay ku jirto ilaahay uu arkaya markaas ilaahay uu sahlaya marka jidkii oo qof marka saalix oo wanaagsan oo mutaqiya qofkaas marka uu ku noqon lahaa allah wuxuu yiri qaala li abihi wa qawmihi xus oo xasuuso waqtigii uu aabihi iyo tolkiisiiba uu ku yiri ma hadhihi tamaathiil wa ma haytaalooyinkan markaad caabudisaan marka tamaathiishu waa timthaale waxa la yiraahdaa الشيء المصنوع شبيها بخلق من خلق الله وشيء لسميه ولو اكيسينيو ابور waxyaabaha ilaahay abuuray marka kamida hadda salahan Soomaalida way ku badan tahay hadan aad bay maaragtay soo badatay waxa la oranayaa taalooyinkii dadkii maaragtay magaca lahayo soo halgamay waa in taalo loo sameeyo marka xaawata ka taalo loo sameeyay Ahmed Guri baa loo sameeyay Sayyid Maxamed Abdullah loo sameeyay kuwa kale badan waa la sameeyay kuwa aan dad ahayn oo suurooyin kale marka waa la sameeyay marka waa shayga la sameeynayo oo loo eekaysiinayo waxyaabihii ilaahay uu abuuray marka wax kamid faraski waa la sawiraya qofkii waa la sawiraya wama ila dalik marka tamaathiishaas khataraha ay leedahay waxa weeye hadhow hadda waxa laga yaabaa wax caadi ah loo sameeyay laakiin sharcigu uu diiday min baab saddi dhariica hadda marka qofka halkan la dhigo oo la weyneeyo oo la xuso dadkan iyagu waxay u xusayaan qofkan taariikhdiisa la xasuusto laakiin kuwa ay sii dhalaan maxay hadhow u xusayaan kaanama wax la weyneeyo la caabudo oo laga barakaysto inuu noqdo ayaa laga yaabaa inay waaga dambe iyagu marka ay u yimaadaan oo sidii dhacdayba dadkii saalixiinta ahaa waqtigii marka nabi nuux markii sanawaad badan ay soo wareegeen wax weeye waa la caabuday marka tan waa halkii waxay kaga duwan tahay marka ma jiro qofka dhintay oo wax wanaagsan qabtayna hadii la xusayna sawirkiisa in meel la saaro oo lagu xus waa la qoraa taariikh waa laga qoraa waa laga sheekeyn karaa marka waxyaabaha kale ayaa marka lagu xusi karaa markaas Allah wuxuu ku yiri ma hadii tamaathiishan maxay tahay allati taasoo antum idinku laha iyada caakifuuna kuwa ku dulnagi oo dul yuuraro oo dul fadhiya aatihiin maxay tahay qaaluu waxay yiraahdeen wajadna waxaan ka helay aan ka soo gaarnay aabaana aabayaashay oo caabidiina caabudaya laha tamaathiishaas marka wuxuu ku yiri qaala wuxuu yiri la wallahi qad haqiiqa kuntum waxaad ahaydeen antum idinkiya wa aabaa'ukum abayashin fi dalaalin mubiin baadi cabba marka ku sugnaydeen hadaba halka waxa laga qaadanayaa marka la leeyahay qofkaas ma qof fikir ahaan xor u ah ama xor u maaha arintan oo kala tusaalawa nabi ibraahim wuxuu soo gaaray aabihi iyo tulkii oo wax khaldan caabuday marka uu ka beeray marka waxa la oran karaa qofku fikir ahaan ayuu xor u yahay wixii dadkiisu iyo waalidiintiisu ay sameyn jireen khaldana markuu soo gaaro ka leexanay oo xaqa aaday waxay ku saxan yihiin ku raacay kaas wuxuu noqonayaa marka qof fikir ahaan marka xor ah laakiin xor ma aha qofka ku dhex gadgadoomaya taqaaliid iyo acraafta wax la sameyn jiray oo la yaqaan ayaan ka tagay mid kalena aaday taas ma aha in fikirkaagu marka uu xor yahay marka ma oo marka hadda aynu maqlayno
lagu leeyahay qofkan waa maanshiil bale waa maanshiil waxa laga wadaa wuxuu ku leeyahay waxaan ahay qof maaratay wax akhriya wax la socda wax fahansan fikirkiisu oo xor yahay kadibna wuxuu soo qaadanaya markaa taqaaliidii markaa gaalada ay soo guurinaya markaa dadkiina wuxuu ku ceebeynaya dadkiisii dhaqankii markaa ay lahaayeen iyo taqliidka ay lahaayeen buu ku ceebeynaya marka taqliid buu ka tegay taqliid kale uu aaday timaha in hoosta laga xiiro waa taqliid ay gaale leeyihiin surwaal jeexjeexan in la xidho waa taqliid ay gaalada leeyihiin dhaqamo badan oo noocaas oo kuwana ay xaaraan yihiin kuwana tashabbuh ay xaaraan ku noqonayaan ayuu markaa uu aadayaa markaas mid laga yaabo taqliid boqolkiiba maaratay 70 80 60 saxana uu ka cararayaa markaa uu nacaya oo dadku markaa uu uga digaya markaas oo khamiiskaada xidhantay wuxuu ku leeyahay waxaad xambaarsan tahay dad markaa dhaqankoodii fikirka xor kama tihiin waxa weeye carabba markaa waxa weeye adaba socotaa sacuudiga timir laga soo diraa marka haddii tani ay maro iyo taqliid tahay aduguna mid kale baad aad oo adigu waxaad asal u lahayd asal ahaan haddii la doodo macaawusnaad xidhato iyo wax la mid ah hadda adigu maxaad xidhantaa surwaal iyo tay iyo wax la mid ah marka hadda dadkaaga adigana may lahayn waa abayaasha kama soo gaadhay taqliid baad ka carartay wanaagsan mid xun oo la garanayn baad u carartay marka waa kada wuxuu marka qaalu waxay yiraahdeen ajiitana ma waxa noolatimi bil haqq haqq am antum sa'adu min al-laa'ibiina kuwa marka ciyaarayaan marka kamid tahay qaala wuxuu bal iska daaya rabbukum rabbigiin rabbus samaawaati wal ard allada iyo samooyinka wa allah marka maamula oo marka amaamuday alladhi allah soo fatarahunna abuuray markaas wa ana anuguna min ash-shaahidiina kuwa ka marxaati ka cayaana ala dhalikum kiinas markaas inaad cibaado khaldan ad ku socotaan iyo ilaahay cibaadadiisa cid kale inaanay mutaysanin taasan ka marxaati ka caya waaya ambaba wa ana anugu min ash-shaahidiina kuwa ka marxaati ka cayaana ala dhalikum ay ala annahu khaliqus samawati wal ard samooyinkii arlada inuu ilaahay u abuuray tabaaraka wa tacaala wa tallah ilaahay baan ku dhaartay inta kuma joojin nabi ibraahim ficil buu markaa ku daray wa tallah ilaahay baan ku dhaartay laakiidanna waan shirqoolaya asnaamakum sanamyadiina bacda an tuwallu marka ajeysataan mudbiriina kuwa daba jeedii xaalaatihiin faj'alahu markaas wuxuu ka yeelay judaadan ay kisaran wa qita'a kuwa la burburiyay oo la baabiyay uu ka yeelay illa kabiiran mid weyn oo lahum iyaga u sugnaaday markaa ma ahan la'allahum laga yaabaa yarjicuuna inay laabtaano ilayhi nabi ibraahim ay u soo laabtaan qaalu waxay yiraahdeen man facala ya samii hada midkaas bi alihatina alihadeedi ya ku sameeyay innahu kaas la min adh-dhalimiina kuwa dhulmi falayaasha ayuu markaa uu ka mid yahay qaalu waxay yiraahdeen samicnaa waxaanu maqalay fatan midan yara ah oo yadkuruhum ay yaciibuhum ceebaynaya ilaahiyadeena bimacna ama yadkuruhum ku sheegaya bisuu'in xumo midkaasoo yuqaalu lahu la yidhaahdo ibraahim baa markaa la yidhaahdaa qaaluu waxay yidhahdeen fa'tuu la kaalaya bihi ibraahimka calaa acyuni nnaas dadka markaa indhahoodii korkooda xaalo uu ku sugan yahay lacallahum yashhaduuna likay yashhaduu si ay markaa dadku ugu markhaati kacaan qaaluu waxay yidhahdeen markii la keenay a anta ma adigaa facalta sameeyey haadaa midkan oo ficilkan markaa ah waaya biaalihatina ilaahiyadayda markaa ma adigaa markaa ku sameeyey waaya yaa ibraahiimo qaala wuxuu yidhi lam afcalhu maan samayn bal iska daaya facalahu waxa sameeyey kabiiruhu midkoodii u weynaayo haadaa midkaa kan ah ee fas'aluuhum weydiiya in kaanuu yantiquuna kuwa dhawaaqaya oo hadlaya marka haddii marka ay yihiin nabi ibraahim wuxuu ku dhaartay dhaar
oo mufassiriintu qaar ka mid ay leeyihiin wuxuu maqashiyay dadkii markaa sanamyada caabudi kuwa ka mid markaa maqashiyay oo wuxuu watallaahi ilaahay baan ku dhaartay laakiidanna asnaamakum sanamyadiina markaa aan burburinaya marka culimada sida Sudayi oo kale wuxuu leeyahay waqtigii ciid yahay waqtigii ciid soo dhawaaday kadina aabihi baa wuxuu ku yiri hadii aad aabana raaco oo ciidana la aado anaga diinteedu inay ku cajab galisaa laga yaaba kadibna markii dariiqii uu soo gaaray ayuu dhulka isku tooray markaas wuxuu yiri inni saqiim anu waan xanuunsanayaa buu markaas kadibna way soo dhaafeen isagoo markaa meeshii yaalo oo qof xanuunsanayo oo kala marka dadka badankoodu way soo dhaafeen laakiin in yaro hadhay oo koodii ducafada ahaa ayaa wuxuu maqashiyuu u sheegay inuu burburinayo markaa sanamyadoodii markaa waxay caabudayaan sidaas markaa ay sheegaan marka wuxuu watallaahi ilaahay baan ku dhaartay laakiidanna asnaamakum samiyadiina burburinaya laakiidanna ay la amkuranna biha wa shirqooliya markaa way بعد أن تولوا أي بعد أن تدبروا منطلقين إلى عيدكم ومركا دبجه لسان بعد أن تدبروا منطلقين إلى عيدكم مركا أتكتان أو حقا يعيد مركا هذا مركز مركا مجاهد قتادا وحي ليه وحوي هل قف مركا وشاق وهدونا هل قف أي مركا شيء دونه ومركا فافن دونه فجعلهم مركا وحو كيالي جدادا كو مركا لبربريو لججبيه إلا كبيرا لهم مد وين أو مركا يغا وسونا مركا مويان هل مد بك صهرين لعلهم يرجعون ساي وصول لابطان إليه نبي إبراهيم وصول لابطان وهدو مركا أركان وحان استفاعين إني يهين إني مركا يراهدان وأنك إبراهيم باين نغا سحانه إساقا مركا إن راعنا مركاس أما لعلهم إليه يرجعون إني مدك وينوصوا اللابطان أولي راهضا وراديك صوحري أديك مركا ياكو باقي علي ساسو كاري قالوا وحيد هذا من فعل هذا بآلهتنا إلهي هذا مركا يسيدا كسمي إنه مدكاس لمن الظالمين الظلم فلياش مركا كمد هذا قالوا وحيد هذا سمعنا وحن وقليفة ندل يراه ويذكرهم شيء وبمعنى عيبينيه ويقال له إبراهيم بأمركا الله يقانا مركز قالوا وحيدادين فأتوا به لك عليا على أعين الناس تذكر له ذكركو ذحاله وكسوغيه ويعني لا أركايه أما وحتى هذا قالوا وحيدادين فأتوا به إبراهيم لك عليا مرئيا مثل أركي حالويه على أعين الناس تذكر له ذكركو ذلك أركايه لعلهم يشهدون لكي يشهدوا سمركا يقوم مرخاتك عان قالوا مركاسا وحيدادين أأنت ما أدقى فعلت سميسي هذا متكن بآلهتنا إلهي إذا ماذا كسمي يا إبراهيم قال مركاسا وحري لما فعله ما سمين بل إسكدا إنا سميه فعله كبيره متكو ذي وينابا مركاسمي وهذا كان فاسألوهم ويدي إن كانوا ينطقون هدي مركايا هالليان مركا علماء وحي شيغان مركن ويري بل فعله كبيره نبي إبراهيم سجى بربري هذا نوح يري مد كوي بربري مركا وهلك علماء يقولون شرين أو قصة أراتي صحيح حديث النبي كان قصة أراتي من حديث هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة إنه النبي يري إن إبراهيم لم يكذب غير ثلاث نبي إبراهيم صدح جارهم ومركا وبين شيء ثنتين في ذات الله لبك مدي هنا إلهي درتي بإهيدها مركا وليبنا علماء الضب يقول نقدان واحد هذا بين بمركا ما يحي التوريه مركا حي توريه ومحي ووح ظاهر مركا هذا يكتب وحوي حقيقة مركا حقيقة دي يعني توص موافق سنة ظاهر كمركا هذا يكتنا قف وحول شيء يمركا وح مركا وافق سنة مركا marka sida loo eegana beenba marka ma noqonayso tawriyadu marka mar walba ma banaana mar walba hadal xogaa
aan toos u cadayn oo xaqiiqo ahayn mar walba ma sheegi kartid oo qofka markay dan ku qabato ama xaaladdu ku adkaato markaas oo kale marka la sheegaya sidii nabi ibraahim ku dhacday marka calayhi wa ala nabiyina salaatu wassalaam hadaba culimada qaar way ka jawaabeen waxay leeyihiin middan uu leeyahay waxa sameeyay midkoodii weynaa tawriix xataa ma noqonaysa waa xaqiiqo oo sababtu waa maxay wuxuu ku xidhay baa la yidhi shardi buu ku xidhay oo muxuu yidhi waxa sameeyay midkoodii weynaa in kaanuu yantiquuna haddii ay hadlayaan iyagaa sameeyey marka macnaheedu waa maxay haddii aanay hadlaynin may samaynin marka xaqiiqdii waafaqsan tahayoo shardi baa markaa lagu xidhay haddii xataa laga soo qaadaba inay tawriya tahayna dee iyadana xaaladdu ku sugan yahay oo in la dilaa ayaa markaa iyadana markaa tawriyada markaa uu ku badbaadaya markaas marka mid waxay ahayd waa midda kalena waxay ahayd markii uu yidhi faqaala innii saqiimun fatawallow canhu mudbiriina war waana xanuunsanayaa kadibna waa kuwii iskaga tegey midda saddexaad maxay ahayd waxay ahayd midda saddexaad nebi ibraahim ayaa waqtigiisii waxaa noolaa mid markaa jabbaara oo markaa awood leh oo markaa dadka markaa dilaya oo dhibaataynaya marka waxaa la sheegaa isagoo socda ninkii jabbaarka ahaa meeshii uu ku noolaa ayaa waxaa la socotay xaaskiisii saara oo isxaaq markaa dhashay haajarana nabiyullahi ismaaciil bay dhashay guri buu soo degay deetana ninkii jabbaarka ahaa nin baa u yimi ileen balaayo kasta cid baa u shaqaysee ninkii jabbaarka ahaa nin u shaqaynayay baa u yimi oo wuxuu ku yidhi innahu qad nazala haahunaa rajulun biardika macahu imra'atun axsanu nnaas halkan waxaa soo degay nin ayaa dhulkaagii soo degay waxaana la socota markaa gabadh midii u qurux badnayd baa markaa la socota markaa ninkan wuxuu samayn jiray ninka haddii walaashii la socotana wuu ka qaadanaya isagana wuxuu leeyahay iga tag haddii uu xaaskiisii la socoto uu ka helana ninka intuu kaw kaga siiyo markaas laanta ka qaadanaya ilaa nin islaantiisa laga qaatay markaa ma samreeye sidaas uu dilaya markii sidaas ay dhacday ayaa wuxuu u yeedhay oo wuxuu ku yidhi maa haadihi almar'atu minka gabadhan maxay ahayd buu ku yidhi wuxuu ku yidhi markaa waa walaashay kadibna wuxuu yidhi fadhab fa arsil biha ilaya iigu yeedh buu yidhi markaa hadday walaashaa tahay nebi ibraahim wuu u yimi saara markaasaa wuxuu ku yidhi ina hada jabbaaran qad sa'alanii canka fa akhbartuhu annaka ukhtii falaa tukadibiinii cindahu ninkani wuu kaa weydiiyey markaa waxaan u sheegay inaad walaashay tahaye been ha sheegin hay beeninin ee waxaad tidhahdaa markaa walaashay baan ahay fa innaka ukhtii fii kitaabi illaahi wa innahu laysa fi lardi muslimun hayrii wahayrak maxaa yeelay marka diin ahaan la eego diinta marka la eego walaalaynu nahay marka labaadna dee wax muslimaba adduunka korkiisa innagaa ku nool marka sidaa musuu ugu sheegay waayahay bay tiri way u tagtay markay ninkii u soo gashay ayaa waxa dhacday nebi ibraahim salaad buu iska galo dee markaa ilaahay u beriyey tabaaraka wa tacaala markay u soo gashay fara'aaha ahwaa ilayha fatanaawalaha gabadhi intuu quruxdeedii uu la yaabay ayuu jeclaaday kadibna markaa wuxuu isku dayday markaa gabadhi inuu qabsado kadibna fa ukhida akhdan shadiida ninkii waa la qabtay markaas wuu dhaqaaqi kar waayeba ilaa waxa weeye maxay ilaahay junuudiisii ciidamadiisa markaa aad bay markaa u farabadayeen markii uu arkay markaa inaanu xaalkiisu uu xun yahay ayaa wuxuu ku yidhi udci illaaha lii walaa aduruk naa ilaahay ii bari aniguna ku dhibi maayo markaa waan iska kaa deynayaa fa ursila fa ahwaa ilayha markii haddana la sii daayey ayuu isku dayay haddana inuu gabadhi ku noqdo haddana sidii oo kalea markaa la qabtay dhowr jeer markii la qabtay ayaa markaa waxa dhacday in markaa markii saddexaad uu yidhi markaa udci illaaha falaa aduruk markaa saddexaad buu jaanisa sii ilaahay bay u bariday kadibna markaa faruhu ka qaaday gabadhi wuxuu u yeedhay kuwii u shaqaynayey wuxuu ku yidhi innaka lam ta'tinii biinsaanin walaakinaka ataytanii bishaytaan wuxuu yidhi qof iimaad keenine
shaydaan iyo balaayo idin keentay buu markaas ay iga saaro naagtan iga kaxeey buu markaas sidii ayaa saaro markaa laga kaxeeyay oo ilaahay tabaaraka wa tacaala kafa Allahu kayd al-kaafir al-fajiri uu kaga badbaadiyay markaa ninkii markaa kaafirka markaa ahaa markaa taas markaa culimadu saasay ku macnayaan markaa wuxuu qaala wuxuu lama fa'alhu man sameeyna bal fa'alahu waxa sameeyay kabiiruhu midkoodii u weynaayo hada kana ee fasaluhum weydiya in kaanu yantiquna kuwa hadlaaya hadii markaa ay yihiin الله وحده فرجعوا إلى عبدهم إلى أنفسهم نفوذ بكل عبد فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا مركزا وحدادين إنكم إذنكم أنتم إذنكم الظالمون كوضم فليالا يا مركاتين ثم إنت أكدنا النكسوا ولا فورري على رؤوسهم مدحيوا ولا فورري لقد والله قد حقيقي بإلهدين علمت وذقاتي إبراهيم ما هؤلاء كون إناني أهين ينطقون كوا مركا حليا فكيف نسأله سيدين مركا وحويدينا قال وحكولا فتعبدون وحد عابد من دون الله إلهي سكدي ما لا ينفعكم وحمركا أو وحبا إيدين ترينين شيئا وحبنا إن عبدتموه دي مركا عابدان ولا يضركم آن مركا إيدين دبينين إن تركتم عبادته عبادتي مركا هديات كتكتان أف مركا إيدين سنات لكم إذن يولي ما تعبدون وحد عابد من دون الله إلهي سكدي مركا حال وهذا أفلا تعقلون عقلي مركا ميدان لهين فرجعوا إلى أنفسهم حال قوضا نفهوا ذي بيقول الله عبتين مركا لليه معنى الوحي نقانيسا فتفكروا في قلوبهم ورجعوا إلى عقولهم يعني وي فكري وي دب يسوون نقضين بس كحد بيدبوا قشقيسيين مركا أي وحي إلهي إقرار باسمين مركاس إن خلديهم بمركا قرين فقالوا مركاسا وحي هذا إنكم إذنكم أنتم الظالمون واركوا الظالمين تين ومحا الظالمين كتين بعبادتكم من لا يتكلم دي وحن هل نبد عابديسا أما وحا لوران كرا وحي هذا الظالمين باتهينو ننكن إنا تسؤاشا ويديسان يدو آلهذيني أي هل كان شوفتي حاضر تاي وخلق أي آلهذي ويدية وننكن إبراهيم وحمرك هويديننا marka xaqi markay qireen ayaa thumma inta kadib nukisu wala fooriri ala ruusihim madaxooda marka loo fooriri waxa laga wadaa halkana waxa laga wadaa way laabteen oo waxay ku laabteen marka diintoodu xumid marka ku laabteen oo gaalnimadii ay marka huru marka ugu sii socdeen ila marka ay qirteen waxa la rabay inay soo noqdaan halkay soo noqon lahaayeen bay marka gadaal gaalnimadii marka ugu laabteen marka naqsigu وقلب الشيء بحيث يصير أعلاه وأسفله والشيء للرغيب وحا الله يقانا مركا نقص مركا الله يقانا رغيتان كننا معنيه معها يجي إلا فوريه معنيه معها ومعنوي وحا لغا وضع فكر كود ومركا استبقدي مركاس معنو ساسو مركا نقانيا مركا ثم نكسوا وحا لغا فهم يا مرهدي لين لابتين على رؤوسهم محلوغو سي أدكين إلا مرة دي ليري ولا فورري إلا فورري ولا فهمي سوما على رؤوسهم حال لو قدر والتأكيد بمكان قنص على بعض الأقوال على أحد الأقوال مركز واحد لقد حقيقة لا والله قد حقيقة علمت ما هؤلاء ينطقون واحد أكته يكون إناني هل ينيني فكيف نسألهم سيدين مركز وحويدين مركز إبراهيم قال مركز واحد فتعبدون من دون الله وواحد عابد سان إلهي سكدي ما لا ينفعكم شيئا وحا مركا وحبا إذنكو أنفعين هدي عابدان ولا يضركم أن إذن دبين هدي العبادة مركا كتكتان أف واسم فعل مركز قفك وحل إلى حناقصا عدك كصوبحا وحل الله يقالنا أف مركا معني ذو محي أف لكم أي أتضجروا وانا عريسنا يو لكم إذي كان إذن عريسنا ولما تعبدوني واحد عابد سان مركا ومن اسم فعل ومن مصدر إلى اسم فعل ما مركا لوران كرا ويا مصدر كيسنا والقوة كرايو أفين بايدين سمعت لكم بذيك ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون عقل مركا ميدان لهين مركا يجي مركي لقعت كذا لقى حجات كذا أيا قالوا واحد هذا نحرقوه جبا وانصروه لي آلهتكم إلهينا إن كنتم أداتي فاعلين كو مركا وحسمين قلنا وحامنري يا نار ناري كوني أهو
بردا قبو وسلام نبت قليو على إبراهيم النبي إبراهيم نبت قليو مركا برد مركا وهو وأرادوا وحي للضونين به نبي إبراهيم كيدا مركا شرقول بمركا للضونين فجعلناهم مركا يجي وحن كدغني الأخسرين كوا خساري ومركا لغا غوليستي ومركا هوغي markii xujadii lagaga adkaaday ayaa waxay sameeyeen inay markaa isa sii maqiiqaan oo ay yiraahdaan haba dhageysanine waxa weeye dila marka waxa la yiraahdaa hakamu alayhi bil i'dam harqan waxay go'aamiyeen qofka wax lagu xukmiyo wixii uu darnaa oo ah marka in la dilo oo nafta la dhaafiyo welibina dab nafta lagu dhaafiyo marka la gubo marka fajama'u hataban kathiran jiddan mufassirintu waxay tilmaamayaan inay marka ururiyeen dab marka xaabo aad u fara badan markaas suday wuxuu tilmaamayaa wuxuu gabadhu marka ay xanuunsato nadar bi galeysa waxa leedahay hadii aan caafimaado waxa igu nadara inaan xaabo soo ururiyo oo ah xaabada Ibraahim marka lagu gubi lahaa ثم جعلوه في جوبة قد وين وآد وين بمركا قدين وأضرموها نارا نار بمركا الوشد يضب فكان لها شرر عظيم ولهب مرتفع لنبيل آد وين يقول المركا آد وكرو كعسا أي مركا ماشي مركا كد اللاعي وحليها لم توقد نار قط مثلها ضب سبو كلا ولي مركا المشي انتاس أو ضده أي مركا يسوقتي falkay sameeyaan waa fil diineedo waa waxay aaminsan yihiin marka in diintoodu ku difaacayaan marka nabi ibraahim waxa lagu qaaday marka min janiiq waa bahalkan oo laan weyn oo inta la sameeyo oo la saaraba la sii deeynayo kadina iyada marka tuuraysa markaas oo nin oo arabti farisiinta kurdiinta ayaa fikradda marka sii barinaysa marka sameeyaan marka nabi ibraahim markii sidaas ay dhacday waxa la sheegaa sida xadiidka saxiixa ku sugan ibn Abbasna uu warinayo inuu yiri marka hasbi allah wa ni'mal wakiil ilaahay baa ugu filan mid la tala saartana marka isaga marka u fiican markii naarta lagu tuuray uu marka uu sida yiri qofkuna hadii shar iyo dib oo la yiraahdo gaaladii baa isu ka soo bahaysatay gaaladii baa waxa sameeynaya waxa ay qorsheynayaan qofka hadii uu maqlo waa inuu kelmadda marka isticmaalo markaas نبينا عليه الصلاة والسلام مركي سورة آل عمران لغيري غزوة الأحزاب إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل وحلقولي نميك ويسا صوبة هايستين ويسور غير عليين وحوي عبس القلين بمركا الله شاك مركاسا إيمان بزياد سدينه وحي لدن صحابتي نبيكي حسبنا الله ونعم الوكيل marka sidaas uu kaga badbaaday dhibaatadii iyo dacwadiina marka wuxuu u maray dabbu marka u maray inuu dabkaas u bareero oo marka uu ku dhaco marka qaalu waxay xariquhu gubu wansuru alihatukum ilaahiyadina u hiiliya in kuntu faa'ilina marka hadii marka wax sameeynaysan marka dabkii marka lagu tuuray xarka ku xixina الله وحده قلنا وحن كن لي نار يكوني أهو بردا قبو يا وسلام نبي على إبراهيم نبي إبراهيم مركي ودبكي وكسر دعي حد دبكي وحجو بحركه كحر نابو أيو عني أو جوبي إسقين إلهي بمركي وحو أمره يصير دقة إني مركها نار تنا أي نقطة قبو مركزها وحليه هاي أبو عباس ابن عباس يا أبو العالية waxay leeyihiin hadii ilaahay aanu oran lahayn wasalaama oo lagu deyn lahaa bardan naaray qabow noqoh bas hadii lagu deyn lahaa qabowgaas dhib lahaaba marka nabi ibraahim ilaahay baa wuxuu ka sii dambeysiyay wasalaaman iyo nabadgeliyo ila qabowga laftigiisa wax uu dhibaya marka waxay kamid tahay quraanka marka ajaa'ibtiisa iyo marka xikmtiisa taasana kamid tahay marka sidii ayuu marka uu ku badbaaday markaas nabi ibraahim markaas wanaagiisa waa mid keentay inuu ilaahay tabaaraka wa taala marka uu karaameeyo oo ilaahay uu khaliilullah ka dhigo nabiga yaani ilaahay saaxiibkii
ayuu markaa ilaahay u doortay tabaaraka wa tacaala waa midda keentay in waxa weeye tashahudka marka aynu salliga nabiga akhriyayno nabi ibraahim baa waxa laga dhigay mushabbahu bihi mid isaga la isu eekaysiinay nabigana waxa la amray inuu nabi ibraahim oo kale markaa uu noqdo oo waxa weeye allahumma salli ala muhammadin wa ala ali muhammad kama sallayta ala ibraahim wa ala ali ibraahim nabi ibraahim sidaad ilaahay u amaantay oo uu nabadgelisay nabi muhammadna sidaas oo kale marka meesha la hiigsanaya waa maxay nabi uu hiigsanaya waa nabi ibraahim alayhi salaam sidoo kale nabiga waxa la amray an ittabi' millata ibraahim hanifa nabi ibraahim marka diintiisa marka raac sababtu waa maxay tii waxa weeye xumaan oo dhan marka uu ka leexday uu ka cararay oo dabka marka uu galay marka nabi ibraahim marka amaantiisa suuratu shu'ara iyo suuratu safat iyo ayaan ku soo sheegnay markaas nabi ibraahim alayhi salaam marka culimadu marka waxay tilmaamaan halkan oo kale marka la joogo waxa dhacda dad oo dab maaratay ismarmarinaya oo kooranaya anigu dabkaasaan dhex galaa ama maaratay waxyaabo badan marka isticmaalaya khuraafaat khuzacbalaad baan sixir wama ila dalik marka culimadu xukunkooda iyo ay marka halkan marka kaga waramaan kutubta marka mufassiriinta alusi rahimahullah kitaabkiisa marka tafsiirka ay weyn ruuxul macaaniga loo yaqaan ayaa wuxuu yiri waxyaabaha ay sameeyaan dadka loo yaqaan rufaaciyiinta ama niman loo yaqaan waxa weeye al-bataa'ihiin الرفاعة البطائحيين بمركا الله يقانا وحول مركا نمانكاسي خاصة وقت جيت تارك مركي أي سوق لين بغداد أيا وحبت السحر كي بابت بنت بابت وحوي خرافات كي بمركا بت وحاد عضي إن نمانكاسي دبي دحجليان طب شدان أيو سوسو دحجليان مركاسو مركا حاكل مركا وقبح يا مركاس amba wuxuu soo qaadaya marka xayawaan iyo abeeso markaas marka halkan uu saaranaya markaas marka de mar walba wixii waa wax tajribo ku dhisan wax waa la ogaanaya waxyaaba qaar oo wax cilmi ku dhisan waxna waa wax khuraafaad cilmiga waxa ku dhisan waxa kamid ah xayawaanka masaska abeesooyinka waa laga yaabaa qaar kood oo sunti laga siibay da iyaga in la isticmaalo oo meelahan la keeno xadiiqooyinka oo de meel walba taas way ka jirtaa laakiin dabka la dhexgaliyay sixirka iyo kadibka iyo khuzacbalaadka marka laga hadlaya marka dadkii bay argagax iyo ruuc marka ku abuureen oo dadku waxay u maleynayaan waxana inay tahay karaamaad waxyaabo karaamaad oo qofkan ilaahay uu ku abuuray oo ninkan ilaahay ka cabsado khatara inuu yahay markaas wuxuu leeyahay nimankaasi marka ay falka sameeyaan waxay ku dhawaaqayaan sheekha ay u nisba sheeganayaan wa ahmad ar-rifaa'i oo dariiqooyinka kamid ahaana nin culimo ah oo saalix oo wanaagsan buu marka ah kaana sheekhan saalihan imaam dhahabina kitaabkiisa cibarka ayuu sida marka uu ku sheegay markaas imaam al-alusi wuxuu leeyahay nimanka mid iyaga kamid ah ayaa waxa weeye intuu magacii sheekha ku dhawaaqo oo uu yiraahdo يا سيدي أحمد الرفاعي أيا مركا وحو دح فريسان يا مركا دب سو دح قليل دبك مركو دح قره اسقو خمر سو عبي أيو دبك مركا دح فريسان يا كدبنا محل موديا نكني إنو ولي هايو أحمد الرفاعي وكحرين هايو نمبركيسن ويهايو دبكن يا دباتدنا وأنا وحبك كترين يعني ددك أيا وحوي لموسين يا مركا خرافات كاس مركا waxaas marka culimadu waxay raadaan ma wax khaariqul aada ahba khaariqul aada waa maxay wixii la yaqaan wax ka baxsan ba waxa loo yaqaan khaariqul aada wixii dadku yaqaaneen oo macruufka ah waxa ka duwan oo naadirka ah oo la sameyn karin ayaa waxa loo yaqaan khaariqul aada mise waxani waa iska shay caadi mise waa min baab tahayyul wal makr waa wax xeelad iyo shirqool iyo balaayo marka ay ku jirto waxa marka cadeynaysa arintaas
waxay tii xaqiiqadii soo saaraysa nimankan waxa dhacdayba Sheikhul Islam Ahmed ibn Abd Salam ibn Abd al-Halim ibn Taymiyyah al-Harrani rahimahullah rahmatan wasi'a oo culimadii Ilaahay Islaamku uu gargaaray kamid ahaa ayaa kitaabkiisa Majmuu' al-Fataawi markaa ku sheegay oo wuxuu kitaabka uu ku sheegay culimaduna ay doodaas markaa aad uga sheekeeyaan waxa la nimankan oo badaayixiinta ayaa doodba markaa dhex martay dadkii oo dhan baa la isugu yeedhay nimankiina waa loo yeedhay badaayixiinta ay khuraafaadlayaasha ah Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah isaguna ugu yimi wuxuu ku yiri doodii la gala dood ee markaa ila gelaysaa markaa ku yiri dadkuna markaa hayna arkaan markaa Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah markuu dhacdada uu tilmaamayo dooda wuxuu yiri waxaan niyeystay oo dooda kamid ahay dabkan dhex galeynaa dab baa la shidayaa dabkii markaa dhex galeynaa buu ku yiri waliba waxaan sameeynaynaa buu yiri biyo milix la ku soo qubaystay biyo milix leh ayaa ku soo meeydanaysaan aniguna biyaha milixdan ku meeydanayaa dabkii wada galeynaayo dadku markaa hayna arkaan way diideen markaas Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah wuxuu yiri anigu markaan sidaa lahaa waxaan niyeystay oo Ilaahay waxa weeye tabaaraka ta'ala aan ka bariyay maadaama tawxiidka aan koriyeelayo nimankan khuraafaadkooda iyo xeeladooda aan rabo inaan baabiyo inaanu Ilaahay dabka waxba igu yeelin ayaan Ilaahay weydiistay niyadana sidaas markaa aan galiyay midda kalena waxaan waa wax xeelad ku dhisanay waa waxyaabo markaa isticmaalayaan oo waxa la sheegay waxba ismarin jiray markuu qofku waxaan ismariyo dabka xoogaa uu ku dhex jiri karaa markaas oo de waqtigan damara waa la wada garanayaayo waxa loo yaqaan fire proof oo kale fire proof waa maxay oo waxyaabaha taa guriyaha la geliyo oo guriga la geliyo dabkii waxa la yaabaa waxba ma ka tarayo waa wax dabkii markaa cilinayo markaa proof markaa uga noqonaya marka nimankan waxba is soo mariyeen wixiina uu fahmay wuxuu ku markaa ina geliye way diideen wuxuu ku waayay waxaan sameynaynaa hal far oo kaliya hal far soo dhaqda milix ku soo dhaqa dabka geliye aniguna waan gelinayaa waan soo dhaqanayaa tiina markaa way diideen markaa ay ku fashilmeen Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah kitaabkiisa Majmuu' al-Fataawi wuxuu ku tilmaamayaa wuxuu yiri markii ay doodii ku fashilmeen ay diideen ayaan waxaan maqlay dadkii oo leh oo akhriyaya fawqa al-haqq wa batala ma kanu ya'malun faghlibu hunalika wa qalabu saadirin wa ayaadki ku soo degay markaa suxaradii oo fircoon markii ku guuleysteen waxa weeye nimankii ama fariiq markaa nabi Muuse markaa kaleey salaam markuu ka guuleystay ayaadka markaa Ilaahay uu soo dejiyay markaa way tabaaraka wa ta'ala ee uu kaga warramay markaa xaqi baa sugnaaday baadilkiina waa buray iyagu duleysay markaa meesha ka baxeen markaa ninkii meesha maamulayay ayaa wuxuu yiri nimankan oo umada wareeriyay oo khuraafaadlayaasha maxaa lagu sameeyay Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah wuxuu ku yiri nimankaas hadii ay toobad keenaana waa sax lama taabanayo wala iska deynaya hadii ay toobad keeni waayaan nimanka waa in qoorta laga guro oo markaa la laayo maxaa yeelay waxyaabahaasi oo waxyaabo markaa dadka markaa fasahaadinaya wada sixirka oo kale qofkii sixir lagu arko waa in kow laga sii sharciga islaam waxa weeye xoolihi ba markaa lagu dhacaya dumarkii oo markaa lagu farxumeynaya cirdigii sharaftii baa lagu baabiinaya waa wax xun wixii ugu xumaa markaa weey laakiin waqtigan waliba magaalada hadaan joognana waxa laga soo sheegaya markaa waxyaabo aad markaa u xun waxa weeye dhowr boqol oo shilin 400 oo shilin iyo 300 oo shilin ayaa maanta markaa qof nin oo insaan markaa lagu sixraya markaas daqiiqada gudahood inta loo soo walaaqo oo gaalo iyo balaayo loo soo dhiibo ayaa qofka markaa lagu kala wareejinaya markaas waxa noocaas oo kala iyo dadka markaa oo sixirkaas ku ibtilaysan waa amal kufriye haddaan qoorta laga gooynin dadku markaa ma badbaadiyaan markaas wuxuu baa laga badbaadi karaa dadka in kow laga sii hadii kale dadka markaa ay ku fasahaadayo wax baaqi noqonaya wala naf wala maal wala sharaf haba yaraatay markaa ma jiraysa markaas waxani mucjiso markaa ma mucjiso maxaa la yiraahdaa marka la leeyahay qofkan waxan waa mucjiso marka la leeyahay mucjisadu waa wax ambiyada la siiyo oo Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah ayaa isaga laftigiisu waxa markaa uu ku taariifiyay kitaabkiisa Majmuu' al-Fataawi iyo kutubtiisa kale
sida nubuwaadka oo kale wuxuu leeyahay waa amrun khariqun lil'aada kharijun an maqduri al-jinni wal-insi yujri Allahu tabaaraka wa ta'ala ala aydi al-anbiya ta'yiidan lahum wa tahaddiyan ala aqwamihim waxa la leeyahay hota waxaan mucjizadu waa wax wixii dadku ay yaqaaneen wax ka awood badan oo ka baxsan oo dadku aanay aqoonin walibana sidoo kale dadkuna aanay la iman karin ilaa hadii wax khaariqul aada Allah timaado laakiin dadka ay awoodayaan ama jinki uu awooday ama insigi waxa markaa ma taraysa markaas ilaa waa nabigi waxa lagu xoojinayaa markaa waxaanay dadku markaa awoodayeen marka ilaahay baa siinayo oo waana lagu xoojinayaa dadkoodii iyo qoomkoodina waxay noqonaysaa taxad yani challenge wax markaa aanay sameyn kareenin oo markaa aanay la iman kareenin ba markaa noqonaysa taas markaa mucjiza sida mucjizaadkii oo de anbiyada la soo diray nabi Muuse iyo nabi Muhammad iyo anbiyadii kale markaas alayhim as-salatu was-salam marka taas markaa asaas ay noqonaysa Allah markaa wuxuu yiri قلنا وحن يا نار نار كوني هو بردا قبو وسلاما قليو أي ذات برد قبو مدو صاحبة وسلاما وذات سلام لبد قليو مدو صاحبة على إبراهيم مركا كركي وأرادوا ويدونين به نبي إبراهيم وحل دونين كيدا شرقال فجعلناهم وحن كي لا لخصرين وكو مركا خسارة ومقدق المغلوبين الأسفلين الله وحل ونجيناه وانبدبادني نبي إبراهيم ولوطا يا نبي لوط إلى الأرض دلك حقيسة التي أرضها صوب باركنا عنه بركين فيها لحدة للعالمين عالمين تمرك عنه بركين ووهبنا وحن وهبيني له نبي الله مركا إبراهيم إسحاق النبي إسحاق ويعقوب النبي يعقوب نافلة متسي اسمه يزياد حاله يهي مركا يعقوب كاس وكلا بدكستو الله أركان جعلنا وحانو كيالي صالحين كو مركا ونعكس وجعلناهم وحانو كدغني أئمة يكو لغو ديدو أئمداسو يهدون ددك مركا كو هنونية بأمرنا أرهنك يغا وأوحينا وحن وحيوني إليهم يغا فعل الخيرات خيرات كأول سمايو وإقام الصلاة صلاة أولو وإيتاء الزكاة زكاة أولو بحيو وكانوا وحي أهايا صالحين يا أئمداسي عابدين كو عبد لنا أنغا ولوطا أي وآتينا لوط وانسيني آتيناه وانسيني حكما حكم يو علما أقوم بان مركاسين ونجيناه وانبدبادين مركا لوط من القرية تولدي حقيدة التي قرية سكان دهي تعمل مثل الخوائث وحياها مركا حنحن إنهم حايا ليو كانوا وحي أهايا قوم سوء ضدحن بمركا أهايا كواس فاسقين إلهي الداعديس مركا كبحي وقالا وأدخلناه نبي لوط وحان قليني في رحمتنا نحريس طيدا ددك إهلك أوه أيانو لح قلينيو إساقنا مركا آنو قيب مركا كردقني كمدا محايا لإنه يسوي من الصالحين كوا مركا ومناكسا أي مركا وكمدي هاي نبي لوط عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام ألقى الله وحكوت المامي إن مركا النبي إبراهيم هي لوط مركا لبدبادين النبي إبراهيم هي النبي لوط قرابة أحايا والنبي إبراهيم أيا لوط وحوها أدير بوها وولالكي أيا وحر على مركا لوط ومركا على نبي الله لوطنا يسوق مركي أي هجرودين وقال إني مهاجر إلى ربي سورة عنكبوت وينكسوا برنيا مركي أي هجرودين أيا النبي لوط يسوق وحو بحي حقا إيو أرض الشام مركا عرف كيلو مركا أرض الحجاز مركا حكت وجوردن إيو ميشاس إيو مركا آدي حقا مركو آدي أيا دد بوتك وقت كان يسوق مركا النبي مركا مو أحين دد كيبو كجورسدي دد كاس مركا دد قالا أو ميشا دقن بيلا أحاين عادة حنو ويلا أحاين عادة حنو رقو مركا إنو يسوق تقان عادة دانا ويلا أحاين قالنا مركا ويلا أحاين iyagii uu la dhaqmay uu ka mid noqday kadibna sidii uu markaa iyagii markaa uu guursaday markaas nabi ibraahimna isaguna dhinacan kale oo xuduud markaa Ciraaq iyo Suuriya oo iska ardu Shaam wada ah si guud ayuu isaguna markaa uu ku sugnaa markaas waa Harran meesha markaa loo yaqaan marka Ilaahay wuxuu isagoo dhulka tilmaamay oo ambiyadaas ay joogtay
إلى الأرض نلكي بانو بدبادني التي أرلضا سو باركنا آنو بركيني فيها دحيدا للعالمين ذلك مركا آنو بركين مركا دلك إنو بركيسين هنا أحاديث إنو يكسو أرورتي آيات القرآن مركا هو المامين أو سورة الإسراء وحن قلت دوناه مركا بيت المقدس لقاها الله إنو إلهي يري إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله هريريه سال بركي ومحي ودلك وكي الله مركا أرض الشام أنبابا وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها إيدنا وأرض الشام هي آياتنا التي باركنا فيها للعالمين بكارول بركيسين إنو يهي أي حديث القرآن هو مركة المامين دولك عراقنا نبي وحوة المامين إنو دول فتنة يهي مركز وهذا ما يشهد نجد الله يقانا وكري نجد وحلي هذا دولك كيس سرية تهامنا دولك ميد كيس مركة هوسية مركة عراق يحقاس ومشرقة ونجد مركة الله يقانا ودول مركة سرية حقنا أرض اليمن إيو مكي مدينية حقا حكتنا إيودنا ودول مركة هوسية دول مركة بركة يسمو مركة لغوت الماء مركز مركة ماشي عصنا سيدا النبي وشاقي ويتهاي في تم بدن تقالض أو بدن بلايا ورما مركة كسوة بحلة مركز مركة تاريخ مركة دول الراعة حتى إلى يومنا هذا دادك عراقيين تا مركة لغا شاكينيو داد مركة آد وككن oo in la dhex galo marka ay aad u adag tahay ayaa marka carabta marka la tilmaamay marka lagu sheegaa markaas waa nimankii marka umawiyiinta iyo ninkii marka Xajaaj ibn Yusuf al-Thaqafi oo ahaayo waa nimankii xukumiyo marka madax ka garaacay ee iyaguna madaxaadka isaguna ku adka waaya Allah marka wuxuu wahabna lahu nabi Ibrahim waxaanu siinay Isxaaq waa nabi Isxaaq saga dhalay Saara dhashay wa Yaquba nabi Yaqubna waanu siinay نافلة حال هي مركها مد وزيادة وزيادة محل وضع وزيادة عن المسؤول نبي إبراهيم وحي إلهي ويديستي أيو ديرات كيه وإلهي إنه أولادك أرزاق أيو ويديستيو ده إسماعيل إسحاق وسي حضر محل وسي ديرات أو إسحاق ووحو سيدة لمركها يعقوب مركها يعقوب ومحي وابن الابن ويلكي نبي إبراهيم باسيدره أما هو ولد الولد ومركها الله أوران كرا مركها يعقوب كل شيء يعني هو إسرائيل يعقوب مركها واسكوميد من مركز ويا يقول دمانته الأنبياء مركها هاي الله مركها وحول وكل دمانته جعلنا وحنا كيل صالحين كوا مركها ومراكسا وجعلناهم وحنا كدقنا أئمة الوجود أيضا كوا سيهدون ذلك كوهانونية مركها وناجا بأمرنا أرهن كيجا مركها كلهانونية أرهن كيجا سوبتي مركها وهانونية إلهي إذن كيسيدك مركها وجيري معنيه ذوي ووحينا وحن وحيون إليهم يجا فعل خيرات كو إن لصمي وإقام الصلاة إن لأوجو وإيتاء الزكاة مركا إن لبحيو وكانوا وحيا هاي عابدين كو عابد لنا أنا عابده ولوطنا وانصيني آتيناه وانصيني حكما حكميا وعلما قوان ونجيناه مركا وانبدبادن من قرية تولدي حق إذا كبد بادنا التي قرية كانت هي تعمل مثل بيسا الخوائث وحيابها حن وفاشحون محايا لإنهم كانوا وحيا هاي قوم سوء دضح وفاسقين إله الداعي سكبحي قوم سوء وعادة وحميد فاسقين وقال نمدي وادخلناه ونقرن النبي لوط في رحمتنا رحمة ضيضة ذلك إهل كأوه أي في أهل رحمتنا أي كمدها في رحمتنا أي في جنتنا جنة إذا نقرن ولا نكرا في رحمتنا أي في نبوتنا نبي إذا نقرن النبي وأهانا ولا نكرا انت والله فسرك إنه محايا ليسوا من الصالحين وكو نكسبوا مركا كمدها ونوحا واذكر حسن نوح النبي نوح إذ وقت ناداء ورواق من قبل هذا قهر فاستجبنا مركاسان وآجبنا له ويسرع وفنجيناه وان بدبادني وأهله وأهل كيسيبة انتي ونكسنيد ويه من الكرب كديد كي لباتدي بان كبد بادني كربك العظيم مركا وينا ونصرناه ونهيرني من القوم قومك حقيسان مركا وهيرني الذين قوسوا كذبوا بيني بآياتنا مركا آيات كيغ إنهم محايا يو كانوا وحيا قوم سوي مركا ضدحن وفأغرقناهم وانوا معنشيني أجمعين إيغا مركا لماتود ونوحا إذ نادى من قبل نبي نوحا مركا إلهي رواقع سنوح الله يقانا نداء استغاثة ويرمؤ مركا قرقارة إلهي ينو قرقارو أيود مركا ويدي سنية فدعا ربه أني مغلوب فانتصر مركز من قبل
والنبي إبراهيم هي النبي لوط كهر أي مركا من قبل وكفسر يا مركا بقوي فاستجبنا له إلهي وهو أجيب مركي داي بيني وي إلهنا تبارك وتعالى ووصي شيغيو dad yar u baa horta rumeeyay 950 sano waa markii la soo diray ilaa iyo intii la beeniyay cadaabku ku dhacay ayuu 950 sano u noolaa intii ka horeysay aan la dirin tirada marka kuma jirto marka daadooduna daada nabi nuuxna 950 sano marka way ka badnayd markaas wax yar baa rumeeyay wama aamana maahu illa qalil hadana ilaahay wuxuu tilmaamayaa waxa loo waxyoodo oo loo sheegay inaanay cid kale rumeynaynin dad dambe oo soo socda marka inaanay marka rumeeynin waa marka uu habaaray marka uu leeyahay la tadar ala al-ard min al-kaafiriin diyara ilaahay ahad adduunka korkiisa kaga tagin oo gaalada hadii aad ka tagtana adoomahaaga baadiyeenayaan wuxuu baanay dhalayaan mid faajiro oo gaalnimo badan waa markii loo waxyooday uu habaarku oo marka la imanaya marka fastajabna lahu ilaahay wuxuu marka waan waajibnay فنجيناه وأهله يسقي أهلكي سبا مركا بدبادنا من الكرب كذيتكي لبعتدي أي من الشدة والتكذيب والأداء أي مركا لقى بدبادي كرب قال عظيم وينا ونصرناه ونهيلنا يوم من القوم قومك ونهيلني الذين كواسوا كذبوا بيني بآياتنا آيات كيغا إنهم حايا يقو كانوا وحي أهايا قوم سوء مركا ضدح وفأغرقناهم وانو مركا ماشين أجمعين مركا دمانتون وداود النبي داود حس وسليمان النبي سليمان إذ وقت يحكمان أي حكمين في الحرث في شأن الحرث أرنتي بيرته مركا يحكمين مركا حس إذ وقت نفشت مركا أي مرتين فيه حرث الحديثة غنم القوم ضدك مركا أدعو ذي مركي أمرتي ومركا بيرتي مركا وقعني وكنا نبنا وحامهين شاهدين ومركا كمرخاتك لحكمهم نبي داود نبي سليمان مركا حكم كي حكمين الله وحده ففهمناها ونفهم سيني سليمان مركا النبي سليمان وكل المدكستنا وسليمان يا أبيه داود أهنا آتينا وحن سيني حكما وعلما حكمي يا علم وسين وسخرنا وحن أفضيدني مع داود نبي الله داود الجبال بوريه بان أفضيدنا يسبحنا حال أيهن وتصبح سنة مركا بوره والطيرة بوريه نوان أفضيدن سيدا والطيرة شمبريه نوان أفضيدن إلى مركز سيدا بورها أو كلا مركز وايا وكنا وحان وهاني فاعلين مركا قوة سمايا هذه العجيبة وحيابها على الله يابنا وانو سمين ومحيا بوريه إن لو فضيدي إن بوريه تصبح سنيان شمبريه إن تصبح سنيان وعلمناه وحان برني نبي سليمان صنعة لبوس أي صنعة ملبوس وحل حدو فرسمدو دينا مركا وان برنا مركا وهبكي يدروع لي يدركي مركا لحريني لكم لأجلكم إذن كدرت من مركا أبرنا أما لكم لبوس كاسو لكم مركا إذن كمركا إذن سمنا لتحسنكم سيادة سكاقا إلى لسان من بأسكم بلايدين يدباتدي يدقالة سكاقا إلى لسان فهل أنتم إذنكم مركا متهين شاكرونكم مركا شكر مركا نقيا معنا إلهي أمها النقي ولسليمان وحن أفضل إذن سليمان الريح دبيشي عاصفة بتصور لبني سحالايته تجري حالا أي سعونيس دبيشاسي بأمره نبي سليمان أرنكيسم بكو سعونيسا إلى الأرض دلك حقي سيو سعونيسا التي دلك صباركنا أربركين فيها دلك مركا دحديث ودلك انكسو شاكين وكنا وحناهين عالمين كوؤ بكل شيء كستنا كوؤ بان مركاهين ومن الشياطين تينا وحكمدان وسخرنا من الشياطين دي حقو دي وحان وسخرنا من كوؤ ايان مركا وسخرنا نبي الله سليمان يغوصون قوسايا له لأجله نبي سليمان درت بمركا قوسا يعني بيها مركا قليا ويعملون وحك ليس مينيان عملا عمل كاسو دون ذلك مدك الله سو شيغي marka aan ahayn oo ka sokeeya waaya وكنا نغنا waxaan ahaan xaafidiina kuwa marka ilaalinaya lahum iyaga kuwa marka xifdiya oo shayaadiintu inay xumaan iyo balaayo ay kula soo gaaraan kuwa ka ilaalinaya ay marka ahaan marka qisada nabi daawud iyo nabi sulaymaan aad bay marka warkeedu badan yahay
halkaa inoogu joogo وهذا آخره وصلى الله وسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك